mahadsanid walaal. Bismillaahi raxmaani raxiim. Su-aasha waa maxay dastuur? Aad bay si kooban haddii looga jawaabo waxa weeyaan dastuur waa heshiis bulshadeed oo bulshada isla ayada ay isla gelayso si habkii ay ayado ku go'aansanayso habkii ay ku dhaqmi lahayd ama ay ku kala xiriiri lahaayeen ama shuruucdii ay ku kala dambeyn lahaayeen loogu dhidibaaso. waa si kooban waxa weeyaan heshiis bulshadeed ay bulshada isla ayada isla gelayso ayna u gunti xiranayaan dhammaantooda in ay jiritaankiisii iyo fulintiisii ay wada gunti xirtaan inay isku maamulaan. taa weeyaan micnaha horta dastuur muxuu yahay haddii la yidhaahdo. maxaase su-aashaada labaad maxaa looga baahan yahay waxaa weeyaan waxaa dastuurka lagu qeexaa axkaamta ama qodobada ugu muhiimsan ee xorriyaadka ay ka mid yihiin magaciisii hogaaminta siyaasadda ay ka mid tahay xorriyaadka oo bani aadamka oo shacbiga isku daafacayo inaan lagu talax tegin ama lagu xadgudbin xuquuqdiisa ayaa lagu qoraa. waxaa kaloo lagu fasiraa meesha waajibaadka muwaatinka lagu leeyahay qaran ahaan waa maxay waajibaadkiisa dastuurka ayaa sheega. wuxuu kaloo aad u qeexaa oo muhiim ah arrimo badan buu qeexaa. waxaa ka mid ah dhismaha hay-adaha dowladda awoodaha ay kala leeyihiin habka awoodahaas ay u adeegsanayaan iyo sida awoodahaasi ay isu dheelitirayaan ayagoon aan isku xadgudbaynin midna midka kale aan ku xadgudbaynin. masalan baarlamaanka awooddiisii waa maxay? waa sharci dejinta iyo xukuumadda waa awoodda fulinta. garsoorka waa awooddii oo garsoorka yani cadaaladda. mid walba midda kale inay buuxiso midoodna ayna isku talax tegin ayaa u kala xadayna asagaa u dejiya waajibaadkooda waana arrimaha ugu muhiimsan hay-adahaas dowladda. muhiim waxaa ah in muwaatin kasta uu xog ogaal u noqdo waxa meesha ku yaallo ama dastuurka ku yaallo waayo asagaa dowladda ah shacbigaa dowladda ah muwaatinkaa dowlad ah. marka muwaatinka waxaa isna waajib ku ah in uu xog ogaal u noqdo dastuurka waayo waxaa ku jira qodobo aad iyo aad u saameeya maalin walba nolosha muwaatinka ama nolosheeda saameeya. saa daraaddeed muhiim bay u tahay muwaatinka inuu ogaado waajibaadka meesha ku yaal ee xuquuqda uu leeyahay iyo habka dowladdiisa ay u shaqaynayso iyo nidaamka dowladda guud ahaan ay ku shaqaynayso. inuu xog ogaal u noqdo waxyaabaha qodobada ku yaal waa maxay waajibaadkiisii waa maxay xuquuqdiisii sidee bay u shaqaynayaan dowladda uu asaga doortay ama u igmaday inay u adeegto. dowladdu waa adeegi ma aha sarreeye hoose. waxaa weeyaan shacbiga ayaa ah muwaatinka ayaa ah gobka. xukuumadda ama hay-adaha uu asaga igmaday asagay u adeegaan. marka saa daraaddeed waxaa weeyaan sarreeye hoose yaan loo fahmin ninka dowladda noqda ama dadka wakiilada loo wakiishay inay awoodaha ay fuliyaan ama adeegsadaan yaan loo arkin in ayaga ay yihiin gobkii. gobku waa shacbiga ayagana waa adeegayaasha. gobkaas kelmadaas lafteeda u baahan in la fasiro. muwaatinka gob ah waa sharciga asagaa dejiya. ma hadduu sharcigii dejiyey waxaa weye sarreyntii sharciga ayaa meesha ka soo baxaysa. gobonnimada lagu sheegaya waa dastuurka. dastuurkan wuxuu u buddhigaa ama gundhigi ku yaalla waxaa weeyaan xuquuq yani qodobadii ama axkaamtii lagu kala dambeyn lahaa shuruucda soo socotana inay ku fadhiyaan lagama maarmaan u tahay ayaa looga jeedaa taa. dastuurku wuxuu kaloo u qeexaa nidaamka xukuumadda dhismaheeda sida uu dhisan yahay xukuumadda ujeedooyinka badan oo haykalka dowladda dhismaheeda ayuu sheegaa iyo hay-adaha kale oo madax bannaan ee kaabaya laftirkooda. hay-ada kala jiro oo madax bannaan lagama maarmaana in la dhiso si ay u kaabaan. waxa loo madax bannaan masalan waxaa ka soo qaadaa guddiga madax bannaan ee xuquuqda aadanaha. taa waxaa loo sameynaya waxa weeyaan inuu ka madax bannaanaado xukuumadda baarlamaanka cid kastaba uu ka madax bannaanaado oo markaa uu hubiyo in qodobada xuquuqda aadanaha ah oo yani shacbiga u qoray in uu fuliyo. haddii lagu xadgudbana uu noqdo midkii asaga marta ka daba tegi lahaa usoo dhicin lahaa xuquuqda iyada ah. waxaa kaloo ujeedooyinka kale oo dastuurka lagu nidaamiyo waxaa ka mid ah himilooyinka shacbiga uu hiranayo mustaqbalka dhow iyo mustaqbalka fog.
labadood marta inuu meesha marta uu ka muuqdaan uu qorto qofkii inay qortaan wey inay shacbiga inuu yiraahdo himiladeeda 50 sano 100 sano waxay tahay sidaa inaan gaaro yani mid dhowna waxa weeyaan haddeer inaan qaran dhisto qarankaasina tartiib jiilba jiilka ka dambeeya inay ku kordhisaan si himilooyinkaasi shacbigu uu sii gaaro waa arrin iyadana mustaqbalka dhow iyo mustaqbalka fogba qorshaheeda lagu dejiyo waxa dhismaha xukuumadda baarlamaanka wataan ku sheegay awoodaheeda saddexda awood kala qaybintooda iyo kala xadeyntoodana waa muhiim marka mar haddii dhammaan qodobadaasi oo xuquuqda ay ka mid yihiin aan soo sheegnay kala qaybinta awoodaha ay ka mid yihiin haddii alla ku rooyahay nidaamka maaliyadda iyo kulli oo wax lagu lagu qoray lagu sheegay haddii mar shuruucdaasi oo noqonaya يعني قعنكي أي كسر بحيين شروع ذي كله أي كسر فورما أي كسر ترمين أول نقضي دستورك وحنقولنا يا حيرك وجس الرية حير جرها عن إله حير جرها جرها حيرك كلا أردن صوب بحدونا مثل أي كسر كمان إنه قنيسة شرع على شرعي عن كسر بحنا عن أسرع وافق سنين أي نقولنا يا مد وحكم جيراننا صادر عدد وحنقولنا يا شرعي وجس الرية ummadda ay leedahay ayuu noqdaa professor Karmadaas aadan u maqalnaa in dastuurku yahay sharciga ugu sareeya wadan walba marka taabaan rabaa inaad faahfaahin dheer iga siiso sidee uu uga sareyn karaa shuruucda wadanka u yaala iyo shareecada lafteeda sharciga dastuurka marka la leeyahay waa sharciga ugu sareeya ee ummadda ay leedahay waxa weeyaan ma aha inuu asaga isa sareysiiyey waa la sareysiiyey مثلا هدي مركز دستور لقراء وحابضنا لقى ترجمة رابطان كشعبي محور ربائن النقضة سيداب الربائن سمعمله رابطان كشعبي وأرن سرع وحاكلوا اللي تحكي لها دين تودا أي مرتا حرير كودا ربي أي كده حي يصير مرتا آخر هذا وقش هل كان وقش قيسان لحيان تحكي لي أنت هذا إلا وهذه إسلام يعني دولة إسلام وهذه دولة إسلام أي تاعي وشريعة القرآن كان له فريسيا وحكروا لا تحكي لي لقمة الصوبان وعن شريعة القرآن خلاص سنين إن مرتا لو تحكي لي وصل خلاص سنين وحكروا راديا إن لقمة حن والرابو صادرات هذه مربى أو قرآن كأي شريعة وصل هذه الشريعة وصل لك وياهي دستورك أسجى مصرية وحس الرئيسية شريعة هذه تصال أهان أم كوتوس مثلا كسو قاد ويلكي أو لحبلوت جرا أيان قاضي وحان لفولي بورت أقصى الرئيس الدنيا ده أيان لكوري إيفرست كسو قاد أيان ساري ويلكي اللحظة بلوت جرا ميوكو أندعون كرا أنيقا فولي لكذا بورت إيفرست ميسوحو أوران كرا آبهي إساري بورت إيفرست سعد رادد وحويات دستورك waxaa sareynta waxaa siiyey waafaqsanaanta uu waafaqsan yahay shareecada ayaa kor u qaaday laakiin mar alla markii arrin oo shareecada ay timaado dastuurka yakhdac yani dastuurka uu rogmanaya waa laga sareeyaa marka sareynta marka la leeyahay dastuurka waa kan ugu sareeya waa waafaqsanaanta uu waafaqsan yahay shareecada islaamka iyo dhaqanka Soomaaliyeed ee suuban iyo rabitaanka shacbiga ay markaa ay xeerseen ayaa sareysiiyey saa daraadeed ay tahay inuu sareeyo laguna kala dambeeyo shuruucda soo bixiysan asaga ay waafaqsanaato waaya professor marka dastuur ummad walba dastuur ay samaysataa waa maxay ujeedooyinka ugu muhiimsan ee ummad walba ay hiigsanaysa isleedahay dastuur samayso sabab waa inay dastuur samaysato dastuur samayntiisa in la samaysto waa laga maarmaan waayo qaran ma jiri karayo hadduusan dastuur lahayn aan ka soo qaadano dowlad inay jirto waxaa loo baahan yahay saddex arrimood inay jiraan koo waxaa loo baahan yahay dal laba waxaa loo baahan yahay shacbi saddex waxaa loo baahan yahay gobonimo dal waa haysanaa waa Soomaaliya alxamdulillah allahna siiyey shacbi waa haysanaa waa anagoo dhan muwaadiniinteena Soomaaliyeed allahna abuuray oo dalkeenan ku noolnahay gobonimada waxaa weeyaan markaa dastuurka waxaa weeyaan tii hadday aan sheegnay ku kala dambeynta sharciga ama sareynta sharciga
gobonnimo iyo xornimo Soomaalidu isku qaladaa tusaale ahaan gobonnimada iyo xornimada ina Soomaali waa xor sax waa xor waxa weeyaan qofka cid oo marka isticmaalsanayso ama dul joogto ama awood ku leh ma jiro xor baa tahay Soomaaliya maanta waa xor oo hadda kolonyo korka ka haysto ama Talyaani ama Ingiriisi ama Yurub waxna haysta ma jiro 60 ka soo baxnay laakiin gobonnimadu waxa weeyaan ku kala dambeynta sharciga iyo cidii fulin lahayd cidda fulin lahayd waa dawladda waa saddexdii awood aan ku sheegnay oo inay jirto inuu barlamaanka jiro inuu xukuumadii oo fulinta ay jirto in garsoorkii uu jiro cadaalad uu jiro iyo kaabayaashii kale ay jiraan shacbigana oo ku kala dambeeyo sharcigaas gobonnimada waa taa waa inay jirtaa awood fulin iyo awood sharci dejin iyo awood garsoor ilaalinaysa xuduudaha dadka hubinaysa xasiloonida dalka fiirinaysa haddii la ku fiiro u yeelanayso ama sugaysa nabadgelyada muwaadinka qofka iyo dadka degan ilaalinaysa isla mar ahaantaasina awood ilaalinaysa dhul dhagax dhir dhaqaaqil dad dunqaar wax alla wixii ku nool meeshaasi dhammaantoodii marta awoodii iyo sharcigii lagu maamul lahaa loo baahan yahay haddii uusan dhaqaaqil maxaa Soomaaliga dhaqaaqil waxa la yiraahdaa quraanka hadaad fiiriso ereyga daabba wax alla wixii dhaqaaqo oo nafley ah dad iyo dunqaarna waxa weeyaan dadka iyo wixii oo aan dad ahayn oo nafley ah ayaa la yiraahdaa marka dhirta ka mid ah dhulka ka mid ah dhagaxda ka mid dhammaan mas'uuliyadna saaran weeyaan hatta quraanjada meesha joogto waa mas'uuliyad saaran in la ilaasho waxa ka mid tahay hantida Soomaaliya ka mid tahay marka gobonnimada lagu sheegay halkaas ay jirtaa ma aha gobonnimada aniga dhiigayga blue ama dhiigayga cagaaran markii gaduudan ma aha ama ana gobo adiga blue tahay tan waa gobonnimo oo marta fictional ah wax oo handistay weeyaan gobonnimada runta ah waxa weeyaan ku kala dambeynta sharciga jiridda sharciga ixtiraamka iyo guntanaanta jiridda dawladda waa muhiim marka muhiimadda ugu weyn loo sameysanayo ujeedooyinka laga leeyahay dastuur da soo koobto waa haddii la soo koobo waxa weeyaan dastuurku wuxuu suurtagelinayaa jirsiinta qarannimada iyo midaynta shacbiga ujeedooyinka shacbiga jirsiinta qarannimada Soomaaliyeed iyo haddii la ku rooyay midaynta aragtida fog iyo tan dhow ee shacbiga dastuurka ayaa lagu qoraa waxaa dastuurka lagu wada yani suurtagelina oo gundhig u dhigayaa in maaragta nabad ku wada noolaashada uu sugo nabad in lagu wada noolaado inuu sugo waa iyadana muwaadiniinta iyo dadkii la degan iyo dhammaan arrimaha aan sheegnayba ay jiraan inuu maaragta dastuurka waxaa kale axkaamta uu qoraya ay suurtagelinaysaa xasilooni siyaasadeed buu abuuraya siyaasadii lagu maamuli lahaa lagu maareyn lahaa dhaqaalaha dalka ka soo qaad horumarinta dalka nabadgelyada yani sugidda xasiloonida siyaasadda qaranka lagu maamuli lahaa iyo hoggaanka laftirkiisii lagu hogaamin lahaa asaga yani gundhigeeda waxaa lagu qoraa dastuurka mabaadi'daasi oo dalka lagu hogaaminayo oo dhan waxay ku qoran yihiin ha noqoto dhinac siyaaso ha noqoto dhinac dhaqaale ha noqoto dhinac bulshadeed ha noqoto dhinac maamul ha noqoto wadaagga hantida dalka uu leeyahay dhammaan iyo habka loo qaybsanayo sida laysugu dheelitirayo kan dhiman loo soo dhammaystirayo kan oo dheragsan xoogaa laga dhimayo kan gaajaysan la siinayo dhammaan waxa weeyaan si dheelitiran in dalka uu u hormaro shacbiguna u hormaro waxaa mabaadi'deeda waxaa gundhig ama bundhig loogu dhigayaa midda iyada ah adiga waxaa weeyaan haddii aan si kale kugu sheego waxa weeyaan dalka magaciisi allahu subxaana wa tacaala ka sokow talada ama talinta oo dalka waxay ka bilaabataa talinta shacbiga waxayna ku go'daa kuna dhammaataa talinta shacbiga go-aanka shacbigaa leh marka taas si loo gaaro waa tan oo la leeyahay dimuqraadi dastuuri ah in la gaaro waxa weeyaan talada oo talinta shacbiga inay hirgasho inay asaga talada ka bilaabato asaga talada ka go'do taladiisna ay fusho uu asaga fuliyo waayo professor Jawaari marka muxuu dastuurku reebayaa oo bulshadu ka reebaa kale dastuurku wuxuu aad u reebayaa arrimaha uu reebo waxa kamid ah wuxuu raadiyaa midaynta shacbiga wuxuu diidaa ama reebaa ama ka fogaadaa ama
xayndaab u sameeyaa xuduudka ku xira in kala takooridda ama kala qaybinta ama kala qoqoobidda dalka shacbiga ayuu ka fogaadaa. wuxuu raadiyaa inuu mideeyo dadka, inuu mideeyo aragtidooda, inuu mideeyo horumarka oo uu gaaraya dalka si marta isu dheelitiran inuu qaado ayuu raadiyaa. wuxuu raadiyaa dhismo hay-adaha dowladda oo si fudud ugu adeegi karto shacbiga. wuxuu reebaa, uu ka fogaadaa inuu dhiso dowlado isdudul saaran ama yani hay-ado isdudul saaran oo fulintooda kaadir ahaan iyo maaliyad ahaan iyo dhibaatooyin keeni kara. waxyaabahaas uu ka ilaaliyaa. wuxuu raadiyaa dhismo dowlad fudud, yani hay-ado dowladeed fudud oo shacbiga u adeegi kara, adeegooda siin kara ayuu raadiyaa. soomaali hoog baa qabsaday ama halaag weyne in hadaadunkeedii ka dhacay, dunida heelaaman uu haad ku cunay meel kastaba, kala hallowgeeda aan welina haabkeed lahayn, soo humhumiddeeda ay janannadii ku halgameen, horeba loo eeday aan haybaddeedii dhammaan, laguba haasaasin oo aan baryada hay-adaha laga han weynaanin ay gacanta uun hoorsataa, waa halaaq xumo. aadan carab 1996. tusaale ahaan waxaa jirta meelaha qaar in dadka dowladaha ay ku wareeraan fulinta iyo garsoorka iyo baarlamaanka oo laga yaabo inay isbarbaryaacaan. taas marka waa dastuurka xadeynaya miya? dastuurka wuu xadeynayaa. baarlamaanka wuxuu leeyahay laba xil waaweyn functionkiisa, yani xilalkiisa ugu waaweyn waxaa weeye inuu dejiyo sharci dejin, magaciisa guud waxa la sharci dejin. xilka labaad uu leeyahay waxaa weeye sharciga uu dejiyey inuu ku kormeero, kuna ilaaliyo, kulana xisaabtamo awoodda fulinta oo ah xukuumadda. awoodda garsoorka waa awood, saddexda awood waa siman yihiin oo midda kale kama sarreyso, laakiin iskuma yani midba awood bale waa isbuuxiyaan, waa isdheelitiraan. waxaa markaa garsoorkana waxaa asagana xilkiisa u noqonaa sharcigii la dejiyey oo ay soo go'aamiyeen ama soo xeeriyeen aan idhaahdo wakiiladii shacbiga uu soo doortay oo baarlamaanka u fadhiyey, magaca shacbiga ayay waxay ku dejiyeen sharci waafaqsan dastuurka iyo shareecada. marka yani garsoorkii marka waxaasan xilkiisa u yahay in shuruucdaasi asagoon cidna ka haybadaysanin inuu fuliyo, ha ahaado sida uu yahay sharcigaasi inuu fuliyo, marba hadduu dastuurkii iyo u waafaqsan yahay inuu ku fuliyo, ha ahaado xukuumad, ha ahaado shacbi, ha ahaado qof muwaatin caadi ah, in sharcigaasi inuu ku fuliyo isagoon cidna fiirinayn, maadaama dastuurka laftirkiisa uu oranayo in muwaatiniinta ama dadka oo dhan sharciga hortiisii waa siman yihiin buu mabda'aas u dhigaa. saa daraaddeed qodobkaasaa laga rabaa inuu fuliyo garsoorka, isagoon garsoorka iyadoon cidna u fiirinayn haybadiisii dhaqaale uu leeyahay, cid uu dhashay iyo sarayntiisa iyo uu sheeganayo, tirabadnida ay sheeganayeen iyo marka laandheer mushcaarife ila aakhiri, kuwaasoo asagoo fiirinaynin qofka muwaatinka ama cid kastoo meesha joogta cadaaladii sugan inuu ku fuliyo sidii sharciga waafaqsanaa waa xilkiisa. marka saa daraaddeed bay isu buuxiyaan, mid wuu dejiyaa, mid wuu fuliyaa, midka kalena wuu sii fuliyaa, cadaaladii buu fuliyaa. mid waxaa weeyaan sharcigii la dejiyey buu fulinayaa in shacbiga uu ugu adeego. kan waa dejinaa sharciga waana ku ilaalinaa inuu marata kula xisaabtama aan idhaahdo awoodda fulinta inay fulisay in kale. awooddii garsoorkana waxaa weeyaan qofkii ku gardarooda inay soo qabato oo ay marata ku fuliso sharcigii siduu u ahaa. professor, marka haddaad tidhi saddexda laan sharciga ee dowladdu leedahay, saddexda laan way saman yihiin, awood ahaan yaa sarreynaya? sababtoo waxaan aragnaa dowlado baarlamaani ah oo ra-iisul wasaare u sarreeyo waddankaasaan maqalnaa go-aan ka gaaro, dowlado madaxtooyaha oo maraykanka oo kale madaxweynuhu awoodda leeyahaan maqalnaa. sidee awoodahaas marka u kala sarreeyaan? haddaad tiri mar waa siman yihiin, maxay taas ku imaanaysaa? yaa sarreeya? horta su-aasha jawaabta ugu fudud waxaa weeye sharcigaa sarreeya. qof oo sarreeya xafiis kale ka sarreeya ma jiro, sharcigaa sarreeya. madaxweyne waa madaxweyne, xafiiskiisu ku yahay madaxweyne, wuxuu matilaa madaxweynaha. maadaama la yidhaahdo madaxa dowladda la yidhaahdaa ninka madaxweynaha ama qofka madaxweynaha noqonayo waa madaxa dowladda, micnaheedu waxa weeyaan wuxuu matilaa midnimada Soomaaliyeed. madaxweynaha si kastoo aad u neceb tahay adiga aadan dooran, masalan haddii qolo kale xumaynayso aduu ku xumeeyey marka waa inaad ka gadoodaa.
marka ma aniga ma ogole maana dooran maya markuu banaanka joogo haddii cid xumaysa ama wax kale laga sheego muwaadin inuu ka caroodaa adiga waxaad rabtaa dhihi kartaa ilaa xad sharci adoon ka baxaynin laakiin wuxuu matalaa ogow xafiiska weeyaan maaha qofka xafiiska uu loo doortay xilka uu hayo waxa weeyaan matalaada midnimada iyo heybadda qarannimada Soomaaliyeed buu u fadhiyaa marka taa inaan ka fahmno maaha jaceelka qofka in naceebka qoftii ama waan doortay ima dooran ama reerkayga ma ay reer bulo waaye arinta ma aha xafiiska uu fadhiyo xilka uu hayo hadduu dameer dhaga dheer yahay adiga baa shacbiga doortay waa inaad ku ixtiraamtaa meesha xafiiska uu fadhiyo taas waa mid tan aad leedahay awoodaha kala duwan waxa weeyaan waxaad ka hadlaysaa markaa qaabka dhismaha waa jirtaa qaab barlamaani baa jira oo madaxweynaha qofka noqonaya waxaa doorta yani toos u doorta barlamaanka ayaa doorta mid kale jira la yiraahdo qaabka madaxtooyada oo waxaa toos waxa u doorta shacbiga marka madaxweynaha noocaas oo kale wuxuu leeyahay awood fulin buu leeyahay sida mesela nidaamka ay ku isticmaalaan Mareykanka iyo dawlado badan oo marta toos u doorta annaga Soomaali haddaan nahay laftirkayga si kastaba ha ahaato laakiin muddadii dambe la sameeyay dastuurkii 1979 qaabka aan ku dhaqmayno wuxuu ahaa qaab madaxtooyo laakiin kii 60kii aan ku dhaqmaynay inkastoo madaxweynaha aan shacbiga soo dooran laakiin waxaa soo dooran jiray barlamaan shacbiga soo doortay laakiin awoodaha dastuurka 60kii lagu siiyay baa awoodo barlamaani kaliya ma aha waxaa ku dhafan awoodo oo madaxweyne dadweynaha soo doortay oo kala waxaa ka mid ah masalan dastuurka 60kii madaxweynaha wuxuu leeyahay awood oo ku magacaabo kuna ruqsayn karo wasiirka koowaad ama prime minister iyo wasiir kastoo la magacaabo uu magacaabo prime ministerkana waxay ku xiran tahay ogolaanshaha madaxweynaha inuu ka ogolaado marka saad daraadeed awoodaha la siiyay 60kii lagu siiyay waa awoodo isku dhafan ma aha awoodo barlamaani kaliya dadweynaha ku jirto oo wuxuu lahaa marka prime ministerka oo dawladdaas oo kale tii 60kii oo kale dii ra'iisul wasaaraha waa inuu martaa mar walba xafiisku ku fadhiyaa ilaa inta uu raalli ka yahay madaxweynaha ilaa inta kalsooni uu ka haysto barlamaanka marka labada dhinac waa inuu miisaamo yani shaqada noocaas oo kale waa adag tahay inuu labada dhinac wado waa inuu yani sakiin buu ku socdaa oo u baahan in marta uu miisaamo ayuu u baahan yahay madaxweynaha noocaas oo kale ana waxaan niraahnaa waa madaxweyne saddexda awoodba ka sareeya haddana ka gaar ah micnaheedu waa maxay saddexda awood oo sharci dejinta iyo garsoorka iyo xukuumadaba ama golaha wasiirada saddexda wuu ka sareeyaa waana ka gaar waa ka sareeyaa micnihiisu waxa weeyaan midnimada shacbiga uu matalaa waa madaxii dowladda waa madaxii ugu sareeyay oo qarankaas uu lahaa weeyaan saas daraadeed ilaa wuu ka sareeyaa waa ka gaar marka lagu leeyahay waxa weeyaan saddexdaba ka mid ma aha laakiin howlo ku leeyahay masalan barlamaanka sharci buu dejiyaa sharcigaasi hadduu waa ilaaliyaha dastuurka haddii sharcigaasi uu arko in marta ay ka khilaafsan tahay dastuurka wuu ku celinayaa haddii xikmadiisa iyadoo dastuurka asagoo waafaqsan baa mar camal sharciga wuu celin karaa asagoo isticmaalaya xikmad oo arrimo jira awgeed oo haddii wax kala sababaya wuu ku celinaa asagoo sababeynaya oranaya sidaasaa jirta sharcigaas inkastoo dastuurka waafaqsanyay waxaan idinka codsanaya dib uga fiirsataan maadaama uu keeni karo dhibaatada noocaas haddaan fulino marka saa daraadeed waxa weeyaan lug buu ku leeyahay kana mid ma aha xukuumaddiina sidoo kale prime ministerku magacaabaa wasiiradii magacaabaa ilaa aakhiri waxaa weeyaan dekreetooyinka ay sameeyeen wuu la saxiixaa haddana ka mid ma aha tii garsoorka sidoo kale judiciyaal magacaabaa garsooryaal magacaabaa haddana ka mid ma aha waana ka gaar wuu ka sareeyaa waa ka gaar kana mid ma aha waayahay waxaan rabay inaan ku weydiiyo waa maxay xuquuqul insaan waxaan maqalnaa xuquuqul insaanka xuquuqul aadamiga marka laga hadlo meelo badan oo aad looga sheekeeyo marka waxaan rabay inaad dadka ku daawanaya ama ku dhagaysanaya aad u fasirto waxa uu yahay xuquuqul insaan xuquuqul insaan marka aan horta gadaal u noqono xuquuqul insaanka ma aha arrin afrikaan u gaara ama galbeed u gaara ama carab u gaara ama kristaan u gaara ama muslim u gaara maaha waa xuquuq aadanaad yidhaahdaa xuquuqdan waxaa weeyaan alla ku siiyeen waaye
horta aan u fahmno sida aayadda qur-aanka ay dhahaysaba waxay ka timaadaa walaqad karamnaa bani aadam ayuu aayadda suuratu israa bay ku jirtaa walaqad karamnaa bani aadam waxamalnaahu fi lbari walbaxri ila aakhiri wafadalnaa calaa kathiirin mima khalaqnaa tafdiila yani in badanoo annaka aan uunay buu leeyahay allah subxaana watacaala ayaan uga roonaanay marka karaamada ayay ka imaadaa horta marka karaamada aan fahmno karaamo maanta ma taaban kartaa maya karaamadana maaha heblo waa buuba karaamuu leeyahay xaggan casarku tukana intan galabku tukana maaha karaamada waxaa weyaan waa wax oo dahsoon allah siiyey ilaah baa karaameeyey karaamadaas alla ku siiyey ayay ka soo dhalataa xuquuqda aad leedahay xuquuqda aad leedahay intaa hadda masalan haddii aan kuu sheego midna waa ifyaal midna waa uuriyaal karaamada waa uuriyaal ma taaban kartid waa substantially inaad taabato ma suubin kartid laakiin si ay usoo ifbaxdo waxaad u baahan tahay qofkii inaad karaamadiisa siiso cizayso aadan ku talax taqin xuquuqdiisa aadamiga inuu aad siiso baahitirkiisa iyo wixiisa aad u dhamaystirto sideebaa marka ay isu buuxiyaan karaamada iyo xuquuqda waxaa ka soo qaadaa arkaan uliimaan iyo arkaan ulislaam arkaan uliimaan haddaa aragto kulli uuriyaal waaye adiga waxaad aaminsan tahay waa qalbigaa ku jira laakiin haddii aad arkaan ulislaam aad ashhadu an laa ilaaha ilaa haddaad mar tiraahdo afka aad ka dhawaaqdo waxaan garanayaa inaad muslim tahay marka tan waxaa weyaan karaamadii iyo soo ifbixintii haddii aad tukanayso adoo rogmanayaan ku arkaa inaad salaad tukanaysaan ku arkaa inaad muslimtaan ogaana marka ficilkiyaa soo baxay marka sidoo kale waxaa weyaan marka adoo soomanaan ku arkaa adoo xajiraan ku arkaa arkaan islaamka shanta arkaan islaam waxay soo ifbixisaa arkaan uliimaan sidoo kale magaciisi karaamada ilaahay bani aadam siiyey waxaa soo ifbixiya xuquuqda qofka insaanka loo ogol yahay xorriyada ka mid ah qofka inuu xor yahay goortuu rabo uu bixi karo meeshuu rabo uu tegi karo dalka uu ka bixi karo kusoo noqon karo inaan xorriyadiisa laga qaadi karin hadduusan dembi gelin haddii gurigiisa lasoo galaayo xor uu yahay gurigiisa dhexdiisa wuxuu ka samaysana haddii lasoo galaayo iyadoo garsoorka amar laga heli mooyn aan lasoo geli karin yacni waad karaamaysay qofkii cunugii oo bulshada u dhalanaya masalan haddii hooyadii iyo magaciisii iyo dhallaankii xuquuqda la siinayo waad karaamaysay in meel isbitaal loo sameeyo la hagaajiyo dawladda laga warqabo aan lacag la weydiin ay tahay bulshada midda ay karaameynayso marka saa daraaddeed horta xuquuqul insaanka aan u fahamno waa arrin alla ku siyeen ah weeyaan marka waxayna gashaa qaybta dastuurka loogu qorana waxaa weeyaan qaybta aan baarlamaanka bedeli karin waayo yani meelaha kale waxba ka bedeli karaan laakiin xuquuqul insaanka ma bedeli karaan laakiin maantay u tahay fursad maantuu shacbiga kanshii u haystaa in uu ka codeeyo iska hubiyo iska turxaan bixiyo xuquuqdaasi uu asaga leeyahay inuu maanta hubiyo inay xuquuqdiisa ay tahay waayo maanta ayuu gacmaha ka xiri karaa xukuumad iyo qof kasta iyo hay-ad kasta oo kusoo xadgudbi lahayd xuquuqdiisii maantuu gacmaha ka xiri karaa isagoo si qaab fiican u hubiya xuquuqda asaga uu leeyahay marka xuquuqda insaanka waa arrimaha ugu muhiimsan waxaa kaloo la yidhahdaa masalan dadkii asalaf asaalix ay yidhaahdeen al-insaanu insaanu bimiqdaari xorriyatihi insaanka sidiisba wuxuu insaan yahay hadba intii asaga uu xor yahay intay la eg tahay xorriyadiisa xorriyadda intay la eg tahay unbaa adigana aad insaan tahay marka waxaa weeyaan maanta ayay gacanta ugu jirtaa shacbiga iyo muwaatinka inuu erey ka yidhaahdo xuquuqul insaanka tan haddaan u noqdo qaybta labaad ee su-aashaada oo ahayd maxaa ka mid ah waxaa weyaan xuquuqda waa badan yihin tan hadda aan ku sheega ka mid ah xorriyada ka mid waxaa ka mid ah haddii alla kuu roon yahay qaybaha ay u kala qaybsamaan waxaa weeyaan midna waxaa la yidhahdaa xorriyada qofka qaarna waxaa la yidhahdaa xorriyaadka bulshada qaarna waxaa la yidhahdaa xorriyaadka dhaqaalaha saas ay u kala baxaan xorriyada bulshada maxaa ka mid ah masalan yani xuquuqdan lesaari xuquuqda bulshada waxaa ka mid ah tacliinta in qof walba uu xaq u leeyahy inuu tacliin helo waxaa ka mid ah inuu marta caafimaad helo qof walba uu xaq u leeyahy inuu caafimaadkiisa helo waxaa ka mid ah arrimaha oo nolosha taageera qof walba wuxuu xaq u leeyahy inuu biyo nadiifa helo qof walba wuxuu xaq u leeyahy inuu hoy helo qof walba wuxuu xaq yani waa xuquuq bulshadeed waayo haddana waxaa imaanaysa xuquuq dhaqaale qof walba wuxuu xaq u leeyahay in hadba xirfadii iyo mihnadii uu rabo iyo bec mushtarkii uu rabo inuu geli karo isagoo ilaalinayo nidaamkii iyo sharcigii loogu talagalay
waxaa kaloo imaanaya magaciisi inuu hadli karo freedom of speech. waxaa yani xor inuu yahay ra'yigiisa inuu cabiri karo inuu maarata asagoo maarata aan faafreebid lagu xirin inuu isticmaali karo isgaarsiinta iyo warbaahinta inuu isticmaali xorriyaadka ka mid tahay sheegidii cabiraadda si xor ah qofka uu hadlayana waxay horumarisaa ama kobcisaa garaadka iyo kartida dadka iyo wacyigooda ayuu kordhiyaa qof walba qof kaluu ka faa'iidaystaa يعني قف وحو سفيعا ويقانا ساينس كوكا وحو سفيعا ويقانا حسابته قف كلا وحو آد ويقانا دينته يعني كلا فائدة سيقاسي ومهم إنا مرتا الله فافريبا معها بروفيسور جواري waxaa tahay nin khabiir ah oo muddo dheer ku soo jiray arrimaha shuruucda Soomaaliya wax badanna ka qabtay su'aal ku saabsan khibradaada iyo adigoo og Soomaaliya xaaladda ay marayso jahawareer ka dhacay maxay kula tahay Soomaaliya xilligan inuu dastuurku macno u sameeyo dastuur loo sameeyo macno u sameeyo maxay tahay xilligan walaalow saad hore ku soo sheegay shacbigeena waa jira shacbigu ugu wanaagsan qalad baa laga fahamsan shacbigan Soomaaliyeed waan soo maray khibrad ahaan xukuumadan ka soo mid ahaan jiray in muddo jagooyin kala duwan maamul iyo siyaasi inta waan soo qabtay shacbiga Soomaaliyeed waa shacbiga ugu wanaagsan oo loo talin karo oo tashan karo dalkeena dal oo marta alxamdulillah barwaaqaysan weeyaan annaka sugi kari la mooyaane nicmo badan ku jirta ilaahay waan ugu manaystay waxa naga maqan waxa weeyaan xeer iyo sharci Soomaali waa xursan ku sheegay laakiin gob ma maanta gob ma in the sense ma jiro sharci lagu kala dambeeyo dastuurka wuxuu sameeyaa dhismihii qaranka inaad qaran noqoto inaad jirto waxaa damaana qaadaya shacbiga inay dowladnimadii jirto damaana qaadkeeda waxaa laga rabaa muwaadinka marka maanta Soomaaliya waxay u baahan tahay shacbi ahaan inuu yara fariisto fakaro yiraahdo maxay ga maqan waxa ka maqan walaalo waxa weeyaan inaad isjirsiiso dowladnimo iska dhigto isku noqo tasho xeer dejiso ku midow aragti yani ma dastuur dadkoo dhan ma maqsuudin karo dastuur marka la sameeyo bulshadaas oo dhan ay ku heshiisaan rabaa suurtagal 40% inaad ogoshahay suurtagal 60% inaad ka ogoshahay laakiin inta harsan qolo kala ogol marka waxa weeyaan mar haddii la sameeyo shacbigu u vote gareeyo hadduu mar shacbigu u vote gareeyo micnaheedu waxa weeyaan sharcigii dalku noqday difaacu ka raba jeclow ama necbow yani qaar jecesha ku jira qaar aadan rabin baa ku jira aragtidaada laakiin inta adiga aadan rabin qolo kala rabto adiga kula mid ahoo kula muwaadin ah marka waxa weeyaan in dastuurka la dejiyo waa laga maarmaan waxaan helaynaa jiritaan qarannimo waxaanu helaynaa in faceena aan la fariisano caalamka waxaanu helaynaa in shacbigeena aan marata dayactiran aan marata u adeegno waxaanu helaynaa inta hadda naga fariintay oo marata xasilooni darada daraadeed dalka uga qaxday inay dib ugu soo noqdaan dhalinyaro badan baa noo dhalatay banaan ku dhalatay waa u baahannahay maskax naga guurtay weeyaan inay soo noqdaan waxa lagu gaari karana waxaa weeyaan xeer kala dambeyn sharci kaasoo loo baahan yahay barlamaana u samaysan doonaa ama cidbaa sharci dejin baa u samayn doonaa laakiin shacbi ahaan waa inaan u dejinnaa dastuurkii haddaan dastuur la dejinin qarannimo iska ilow qarannimo iska ilow aakhira iyo adduunyo saad adiga aakhiradaada ugu shaqaysato waxaad u baahan tahay xasiloon inaad halka ku hesho si cibaadadaada u samaysto aakhiradaada u diyaargaroodo meesha annagoo dhan taransiidaan ku nahay adduunyadan cumrigeeda waa gaaban yahay taransiidaan ku nahay marka taransiidkaasi aan ku shaqaysan